بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وناكسن صاحب يال هالكن وحلك وررك كسر دوادا ورك حلك وررك قضبضا داون دونتان وحكم إذا قرح اسمي ذا منها وقصار حوجن دليو وكدع قيبة كم إذا مقالة مقدشو قدوم يكحين كأمني سياسة على على وشكتين وقرح حاسيسك وكبد بادي الشباب وشاقين عيد كلا لبك سدن قرح حاسي جودان حقتكو كذا من أجان ديسو قد بندونا maraykanka waxa uu hanjabaad adag u diray madaxda Soomaalida oo qabateen dhanka safarada ay ugu horeeyaan ayaana loogu hanjabay sababtu maxay tahay waan idin soo gudbin doonaa wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya oo fasaxday barnaamij ka dhana madaxweyne Farmaajo oo ka dhacay Muqdisho iyo gobolka Banaadir talaabadaasi ka hor yimid xog ku saabsan ayaa daawan doonta saaxiibayaal isimada dhaqanka Puntland waxay ku kala qaybsameen xaaladda magaalada Boosaaso qaarkood ayaa amray in dib shaqadiisa uu bilaabo Maxamuud Cismaan Diyaano halka kuwa kalena ay ka hor yimaadeen waa daawan doontaan saaxiibayaal kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeedana waxay ka socdaan Muqdisho Saciidan iyo Axmed Madoobe arrintaas hormuud ahana waa daawan doontaan qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaan haddii ay baweyna laga helo saaxiibayaal ee haddii aad nagu cusubtahay fadlan nagu soo biro subscribe saar like share la wadaag saaxiibada aragtaadana waa inoo muhiim commentiga noogu reeb waxaase naga xasuusina haddii aad joogto waqtiga salaada inaad soo gudato waajibka rabbi kadibna dib ugu soo laabato daawashada muuqaalkan qodobadii aad daawateen oo dhammaystiran u diyaar garooba aynu ku bilowno faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay wadada 21 Oktoobar ee degmada Waabari ee gobolka Banaadir halkaas oo sida la sheegay qaraxa jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir qaraxan waxaa la sheegay inuu ahaa gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo la sheegay in lagu weeraray saraakiil ka tirsan hay'adda UN oo halkaas maray si gaar ah waxaa la sheegay in dhinaca la beegsaday ahaayeen saraakiil ka tirsan hay'ad ka shaqeysa arrimaha amniga oo cadaan ah iyo ilaaladoodii oo loola beegsaday gaariga laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa isaga oo marayay wadada loo yaqaan 21 Oktoobar ee degmada Waabari ee gobolka Banaadir inta la xaqiijiyay qaraxa waxa ku geeriyooday 10 qof oo dad sare u dhaafaya kuwaas oo isugu jira 5 qof oo shacab iyo 5 ilaalo ka ahayd ciidamada iyo saraakiisha UN-ka ahayd ee maraysa goobta uu qaraxu ka dhacay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo ka agdhawaa goobta uu qaraxu ka dhacana waxa uu sheegay isaga lala beegsaday qaraxa ismiidaaminta ah ee maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Cali Yara waxa intaas ku sii daray in qaraxa ismiidaaminta ah ee maanta ka dhacay caasimadda dalka uu maray goobta uu qaraxu ka dhacay isla markaana ay ka badbaadeen waxaana uu sheegay in 10 qofood oo rayid iyo asar isugu jiray ku geeriyoodeen al-shabaab war qoraal oo ka soo baxay dhankooda waxaa lagu sheegay in qaraxa ismiidaaminta ay la beegsadeen saraakiil ka tirsan UN-ka oo maraya agaarka jidka 21 Oktoobar xayndaabka Afisiyoni ee agaarka garoonka diyaaradaha Dancade magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa inta ku sii dareen al-shabaab inay ku direen saraakiil sare oo ka tirsan UN-ka oo maraya goobta uu qaraxu ka dhacay si kastaba ahaatee qaraxa ismiidaaminta ah ee maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa durba cambaareeyay qaar ka mid ah dawladaha dunida waxaana qaraxan uu ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka xasilaneed qaraxyada noocyadooda kala duwan gaar ahaan qaraxyada ismiidaaminta ah oo muddo aan ka dhicin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhinaca kalena magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo xaaladeeda markaa ku sii soconana wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa fasaxday in caasimadda dalka ay ka dhici karaan dibadbaxyo ka dhana madaxweynaha muddaxileedkiisa dastuuriga ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli maamulka gobolka Banaadir uu ka hor yimid talaabadaasi war qoraal oo ka soo baxay wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa lagu sheegay in wasaaradda amniga ay fasaxaysay in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu qaban karo barnaamijyo ka dhana madaxweynaha muddaxileedkiisa dastuuriga ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareegtadan oo loogeysiyay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in ay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed soo codsadeen inay dhigaan barnaamij isla markaana wasaaradda amniga ay ka aqbashay barnaamijkaasi dhacaya 13 bisha Janaayo oo ku beegan Khamiista maalinta Berita wasaaradda amniga waxay intaas ku sii dartay in laamaha ammaanka booliska iyo maamulka gobolka Banaadir looga fadhiyo xaqiijinta amniga dibadbaxayaasha waxaa ka sii horeysay hadal ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir oo kulan aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku sheegay inaysan jirin wax dibadbaxyo oo ka dhici kara magaalada caasimadda ah ee Muqdisho
gudoomiye ku-xigeenka amniga Cali Yare Cali oo dhankiisa si sarbeeba kaga hadlay banaanbaxyada ayaa sheegay in qaraxii caasimada ka dhacay kadib uu jideynayo in magaalada amnigeeda aan weli la isku haleyn karin shacabkan ay ka feejignaadaan inay isku soo baxyo iyo waxyaabo la mid ah sameeyaan si kastaba cabsi xoogan ayaa jirta oo la xiriirta inay isku dhacyo ka dhalan karaan banaanbaxyadan iska soo horjeeda oo dhinacyo ka tirsan dowladda ay diidayaan halka kuwa kalena ay aqbalayaan oo laga qorsheynayo inuu ka dhaco magaalada caasimada Muqdisho warkayga ayaa weli daawanaysaan bartamahana waa kaga jirnaayo qodobka xiga markaanu eegnana dowladda Mareykanka ayaa fariin hanjabaad u dirtay madaxda Soomaalida iyadoo si adag kaga hadashay shirki dhawaan ku soo gabagaboobay magaalada caasimada Muqdisho war qoraal oo ka soo baxay dowladda dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay dhinacyada Soomaalida ay si weyn kaga feejignaadaan banaanbaxyo iyo sidoo kale dhibaatooyin ka dhaca magaalada caasimada Muqdisho war ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa si adag looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya doorashooyinka waqtigooda ka gudbay ee dalka iyo fulinta heshiiskii doorasho ee dhawaan xubnaha golaha wadatashiga qaran ay ku gaareen magaalada Muqdisho warkan oo la soo mariyay fariin muuqaal oo soconaysa 41 sekin ayaa Mareykanku waxa uu si adag ula hadlay madaxda Soomaalida iyadoo fariinta qayb ka mid ahna ay ahayd hanjabaad loo diray madaxda afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price oo akhrinaya wareegtadan ayaa madaxda Soomaalida ugu baaqay fulinta heshiiskii la galay isagoo tilmaamay in cidii qaado tallaabo lagu carqaladeynayo heshiisyada uu Mareykanku ku soo rogayo cunaqabateen Mareykanku waxa uu si gaar ah u eegayaa go'aankii 9 Janaayo ee golaha wadatashiga qaran si loo dhameystiro doorashada baarlamaanka ee muddadeedii kadib martay lana fuliyo heshiiska cusub ee jideynaya 25 Febraayo ayuu yiri Ned Price waxa inta ku sii daray 8 Febraayo waa sanad guuradii koowaad markii uu xilka ka dhamaaday farmaajo Mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo walba oo ku jiraan xayiraadda fiisaha si ay uga jawaabto dib u dhaca dheereen waa dhirirka ama falalka wax u dhimaya hufnaanta geedi socodka doorashooyinka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Mareykanka warkan ka soo baxay Mareykanka ayaana u muuqda mid Mareykanku uu quus ka muujinayo iyada oo tallaabada ugu culus ee Mareykanku uu ku hanjaban ay tahay inuu cunaqabateen saari doono madaxda Soomaalida gabagabada warkayga ayaa ku sii dhawaanayay saaxiibayaal qodobka xiga marka aanu eegnana isimada dhaqanka dowlad goboleedka Puntland ayaa ku kala qaybsamay waan ay ka wadeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari 6 ka mid ah isimada dhaqanka ee dowlad goboleedka Puntland ayaa war ay ka soo saareen xaaladda ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxay intooda badan garab istaag ugu muujiyeen dhinacyada kala duwan gaar ahaan hoggaanka BSF waxaana sidoo kale ay ka soo saareen warkan xal u helista muranka ka dhex taagnaa Puntland iyo hoggaanka BSF qoraalkan oo ka koobna 6 qodob oo ka soo baxay isimada ayaa lagu go'aamiyay General Maxamuud Ismaan Diyaano loo daayo inuu sii hayo xilka hay'adda BSF lana heshiisiyo isaga iyo maamulka Puntland isimada uu hogaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa sidoo kale ku baaqay in Puntland ay ka laabatay heshiiskii dekedda Boosaaso ee DP World isimada ayaa sidoo kale go'aamiyay in 17% dhaqaalaha dekedda Boosaaso dib loogu celiyo magaalada isla markaana gacanta loo geliyo isimada dhaqanka Puntland ayaa isku raacay in dhiigii ku daatay Boosaaso halkiisa loo eego shareecada islaamka lagana hortago dhiig kale oo daata go'aamadan cusub ee ka soo baxay dhaqanka Puntland waxa ka hor yimid isimo kale oo ka hadlay magaalada Boosaaso kuwaas oo sheegay in dawladdu ay mas'uul ka tahay wax walba oo la xiriirta dawladnimada waxaana ay ka digeen in BSF lagu garab istaagay inay si awood ku siiyaan xilka iyagoo sharciyad u haysan si kastaba kala qaybsanaanta sidoo kale waxa daba socda in hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ka baaqsaday socdaal uu maanta ku tagi lahaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxa la sheegay inuu rajo badan ka qabo xal u helista xiisadda ayeeshee warkii maamulka lafta doonta gasha ku noqday ka soo baxay isimada dhaqanka ayaa baajiyay socdaalkii uu Saciid Deni ku tagi lahaa caasimada ganacsiga dowlad goboleedka Puntland ee Boosaaso ee gobolka Bari gunta iyo gabagabada ayaan isla taaganahay saaxiibayaal qodobka xiga markaan eegnana kulamo siyaasadeed oo kala duwan ayaa ka soconaya magaalada caasimada ah Muqdisho hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay kulamo kala duwan oo siyaasadda dalka iyo doorashooyinka la xiriirta hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa caasimada kula kulmay madaxweynayaasha hore dalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa uu la kulmay safiirka dowladda Sweden u jooga Soomaaliya kuwaas oo dhammaantood kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xal u helista tabashooyinka ka jira dhanka doorashooyinka intaasi kadib hogaamiyaha ayaa u ambabaxay magaalada Kismaayo oo uu gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Deni ayaa dhankiisa la kulmay Boqor Ismaan Buurmadow oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka maamulka Somaliland wax garadka ugu caansan sidoo kalena waxa uu la kulmay safiirka dowladda Sweden u jooga Soomaaliya iyo dhinacyo kale kuwaas oo dhammaantood kala hadlay xaaladda doorashooyinka daba dheeraada ee dalka xal u helista tabashooyinka jira iyo sidoo kale kamira dhalinta heshiisyadii dhawaan lagu gaaray Muqdisho u dhaxeeya xubnaha golaha wadatashiga qaran
warkaad ka daawanayseen xulka wararkana waa naga inta saaxiibayaal ee haddii aad nagu cusubtaa fadlan nagu soo biro subscribe saar like share la wadaag saaxiibada aragtidaadana waa inoo muhiim tan iyo kulan dambena nabaday